laakiin waxaan idin leenahay xarfaanay midaas macaan ku sheegaa waa mid markaasi caqabad aad u weyn taasoo markaasi nagu noqotay boog aan bilaadhay micnaha boog aan dhay la helaan rabi inaan dhoo asay luq iga gashiga waradhiyo xaq ka soo baxaa niman yahow waa balaa maaqad ka dhigteen inaad naga dhaaftaan laakiin inooroon halka wararkaas oo naga imaanayna waa shaashada mahad laba suule official fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay adigoo faraxsan oo qanacsan subscribe saar adigoo markaasi aan ka xumeyn waad like kartaa oo si uu markaas asxaabta kale intoo naga dambeysay ay u gaarto minaad dhiirigelisay waxaa igu balana inaad mar walba aad ila socon doonto oo feeraha aan ka tumi doono feeraha ka tumi doono waxaan ula jeedaa waa adiga qofti doono dhihi doone hadda subscribe saaro taasaa iga dardaarana minaad subscribe saarto waa igu balan anigana inaan feeraha kaa furiyo kilkilaa iyo kaa qodqotay oo adigana aad qusishood baf maxaa kuu sheegaa oo ilin ay kaa imaadaan ku dhahay baaf ilin aad iraqsii haysaa daad sii weysidaa ku dhahay laba suul baleema dhoo suulka labaadaan soo jaraa gabartee roosaan siihaa wallaahi bilaahi aan ku dhahay minuu roosa qaada waayo yaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي صديقي iyo kuwa markaasi dib inaga fiirsan doono waxaan idin leenahay galabnimo wanaagsan halka aad inaga daawanaysan barta shaashada YouTube aan ku leenahay ee mahad laba suul official fadlan adigoo faraxsan subscribe saar like na gareysi ee markaas u gaarta asxaabta adiga ka dambeysay ee aad ku quruxda badan waad ku maasan tahay midaasi boqolkiiba boqol ku soo dhawaada wararkii oo dadban aan ku horeyne Capitano Real Enjoyer oo jacayl markaasi xabadiisa ay ugu baxda dartiisa la suuxay Iman Amin oo bilil qabila hub ku qaatay Amina Cabduqaadir kadib markii saaxiibkiisa Real Enjoyer oo dhabarka dhagax u galshay dhanka kaleento haddii aan ayaduna aan ka hadalno garaawoley wareertay ayaa waxay soo bililiqa doonteen suuqa tan degmada Jowhar taasoo lagu iibiyo kabaha markaasi noocyadooda kala duwan halka wararkaasi ee idinkaga soo gaarayaan waa barteena shaashada ee mahad laba suul official fadlan subscribe saar adigoo faraxsan like tuna waa dhankaaga nagu dhiirigeli oo gaarsiiya asxaabta adiga ka dambaysa waad ku maadsan tahay daawashada videogan aan ku bilownay dagaalka markaasi u dhaxeeya Iman Amin iyo Real Enjoyer ayaa waxa markaasi lagu soo waramayaa in Capitano Real Enjoyer uu la sooxay khiyaano uu u geystay saaxiibkiisa Iman Amin kadib markii uu bilil qabila hub uu kaga qaatay saaxiibadiisa Amina Cabduqaadir taasoo markaasi u bandhigatay jacayl markaasi isbuucla jacayl isbuucla fadhi karna midaas sababtoo adigoo jecel Real Enjoyer Amina Cabduqaadir maxaa kugu qasbay walaale adigoo Real Enjoyer jecel ee markaas enjoy ka dhigtay inaadana disib ku noqoto haddana aad ka wareegto oo markaas dhankaas iyo walaalkiisa amba saaxiibkiisa marna saaxiibkiisa ee Iman Amin haddana jecel si kaliis aad wadnaha ugu garaacdo maxaa kugu kalif walaale arintaas qalad weyn ay kugu tahay taasaan kaalena anagana okay dhanka kaleento Iman Amin ayaa asigana dhankiisa aan fiirinin saaxiibtinimada iyo walaaltinimada qotada dheer ee markaasi ka dhaxeysa asiga iyo Salman Enjoyer kadib markii uu markaasi bilil qabila hub uu kaga qaatay saaxiibadiisa Amina Cabduqaadir asigoo markaasi challenge fake ku khiyaanay kadib markii uu qalbigeedii kala wareegay halka Salman Enjoyer uu la suuxay arintaas darteed ayaa markaasi waxa meesha ka qaaday saaxiibkiisa micnaha nimaan la garanaynin asigoo markaasi u joogay dhanka iyo cameraman-nimada asaa waxaa dhacday inuu markaasi si degdeg telefoon ugu diro ninka la yiraahdo magaciisa waxa Iman halka kula dhashay kaasa magaciisa gamidaasa wareera xoowahay kaas haduu Iman Amin uu yahay halkaas magaciisa waa igu wareegto waaya oo ninkaas waaba nimaan micnaa teamka Real Enjoyer markii la soo fadhiisay aan xoogaa iska jeclaay magaciisa luuq iga galniyo balay maasi iga qabatniyo dhib ma lahan kulleeto magaciisa haddii aad taqaan waa taqaanaa kadib markii si degdeg markaasi si emergency aan dhahnay
loogu wacay taleefan isla markaasi loo qaaday goobaha gargaarka degdega ah kadib markii xaaladiisa caafimaad ee dib markaasi horay ugu soo noqotay ayaa markaasi waxay la noqotay arrintaas mid naxdin iyo ama ka ku reebta isla dhanka kaleento Aamina Cabduqaadir oo markaasi ayadana qoomamo markaasi haysata ayaa dhankeeda waxay markaasi barteeda YouTube ay ku leedahay Aamina Cabduqaadir ayaa markaasi waxa ay ka soo sheegtay in markaasi arrintaas ay markaasi ku noqotay mid lama filaan ah dhanka kaleento dagaalka markaas u dhaxeeya Salman Injoya iyo Imaan Amiin oo markaasi cirkaas isku sii shareeray isla mar ahaantaasna aan wax hal waara ah laga gaarin dhanka kaleento garaawolay wareertay oo markaasi ku hubeysan hubabka nuucyadiisa adag ee dhagxaanta ah ayaa weerar bililaqa ah waxay ku soo qaadeen suuqyada markaasi lagu ganacsaday ee degmada Tanjawhar suuqyadaasoo markaasi ahaa mid markaasi lagu iibinaya kabaha nuucyadooda kala duwan ayaa meeshaasi waxaa ka dhacay weerar u dhaxeeya habrihii kaboleyda iyo wiliba xarfaantii garaawoleyda ayadoo isla mar ahaantaas markaasi si degdeg ah loogu wacay ciidamada amniga ee booliska isla mar ahaantaasna goobtaasi ku soo gaaray sida ugu dhaqsiyaha badan leh ayagoo wataan qoryo biraarasaas ah halka markaasi taliyaha ayaga la socday oo markaasi ku hubeysnaa burus maxaa ku sheegaa laba qaandood ah isagoo markaasi wiil ka mid ah oo isku dayay inuu ka baxsado kagana dhuftay madaxa buruskii kadibna markaas meeshaas ka soo gaaray daqar ah markaas sidaas u sii weyneen isla mar ahaantaasna la isku jeebeeyay dhammaan xarfaantii markaasi garaawoleyda ahayd ee u soo bililaqa doonatay suuqa degmada Tanjawhar isla mar ahaantaasna markaasi loo kaxeeyay saldhigga degmada Tanjawhar dhanka kaleento haddii aan ka hadalno wararka markaasi ku saabsan social media ayaa waxaa lagu soo waramayaa in Soomaalida bariyahanba ay noqotay mid bilaamaciin ah ayagoo markaasi Soomaalida markaasi isticmaasha social media qaasatan maxaa ku sheegay YouTuberada yar aysan markaasi wax garabsiin ah aysan ku haysanin ayagoo markaasi muuqaaladooda aanan daawanaynin channelkoodana aanan u saareen subscribe videogana aanu like gareynaynin una share gareynaynin asxaabtooda markaasi isticmaasha social media ayaa markaasi waxay ku noqotay niyad jab iyo caqabad aad u weyn iyadoo isla mar ahaantaasna markaasi YouTuberada qaar ee markaasi ay ka niyad jabeen ee markaasi isla mar ahaantaasna ay isaga carareen goobihii baraha bulshada ay ku lahaayeen ee YouTube-ka dhanka kaleento dad sabarsan sida anigoo kaleenta ayaa wili waxay la fadhiyaan il adeeg markaasi wili ay rajo kaga qabaan in ay markaas dadkooda ku maciini doonaan dhanka iyo subscribe-ka iyo like-ga iyadoo markaas wax dhiirigelina aysan ka haysan xagga commentiga ayaa waxaa lagu soo waramayaa in markaasi caqabadaas wax hal waara ah aan laga gaarin wili toole isla mar ahaantaasna dhankayga baaq aan u jeedinaya ayaa waxay sheegaysaa in Soomaaliyeenta markaasi shaashada inagala socoto ay isla mar ahaantaas gargaar degdeg ah ay ugu fidiyaan walaalahooda YouTuberada yar si ay markaasi soo garab qabtaan isla mar ahaantaasna markaasi u gaarsiiyaan hamiga ay ka leeyihiin baraha bulshada dhanka barta YouTube-ka isla mar ahaantaasna markaasi midaasi qof walba oo markaasi YouTuber markaasi hadda soo baxaya ee u noqon doonto dhiirigelin iyo horumar markaasi uu ka gaarayo isla mar ahaantaasna aysan jirin markaasi wax markaasi caqabad ah oo markaasi ayaga kaga hor imaan kara midaasi in ay markaasi sameeyaan bartan YouTube-ka ayaa waxaa iskala gaal maxaa ku sheegaa sanbab ah isla mar ahaantaasna bixiyo markaasi deeqa lacageed iyo weliba hadiyadooyin kaleenta ah laakiin Soomaalida qaar ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay noqdeen cunsuriyaal aan fadhigooda maxaa ku sheega ka kicin isla mar ahaantaasna aan wax garab siin walaalahooda YouTuberada yar sida anigoo kaleenta laakiin waxaan idin leenahay xarfaanay midaas maxaa ku sheegaa waa mid markaasi ah caqabad aad u weyn taasoo markaasi nagu noqotay boog aan bilaadhay ah micnaha boog aan dhay la helaan rabi inaan dhoo asay luq iga gashay ka warada taasaan ka wada moogtahay marka waxay nagu noqotay boog bilaadhay ma idinka dhaqtarad maxaa ku idinka dhaqtarnoo dhaqtarada ma dhowhaya iga raalin maan dhowgeysku aniga waa iska khaldama mararka qaarkooda micnaha hadalkiya luq iga gala moogtahay oo markaan boobsi isdahabo waxaba jiira maafi iyo waxay iga gashaa moogtahay iyo jiira angole asa anaa ka soo bixiya iska dhaaf idinka mar raba inaad dhiirigelisaan subscribe-ka aad saartaan videoga aad like gareysaan sii share gareysaan asxaabtiina aad u sheegtaan walaal miceen u baanin oo ma soo fadhiistay waa idinka markaas aantaan iska fadhiyo kadalad iyo maxaa ku sheegay jiif nagu fiirsaayo videogan aan like saarayno channelkana subscribe saarayno meelan dib u raaci YouTube
youtube-kayga oo aan fiiriyay ayaa waxaa la sheegayaa 97% oo Sergin la igu soo aragtay le macaan ku sheega inay daabatay oo subscribe dadkii saarnayna ay 3% taas waa dhibaato anigoo 6,000 oo subscribe haysto in views-kayga uu 21 ku noqdo xaq ka soo baxaa niman yahow waa balaa maasad ka dhigteen inaad naga dhaaftaan laakiin inoo roon halka wararkaas oo inaga imaanayna waa shaashada mahad laba suule official fadlan hadii ay tahay markuu ugu horeysay adigoo faraxsan oo qanacsan subscribe saar adigoo markaas aan ka xumeyn waad like kartaa oo si uu markaas asxaabta kale inta naga dambeysay u gaarto minaad dhiirigelisay waxa igu balana inaad mar walba waad ila socon doonto oo feeraha aan ka tumi doono feeraha ka tumi doono waxaan ula jeedaa waa adiga qofti doono dhih doone hadda subscribe saaro taasa iga dardaarana minaad subscribe saarto waa igu balan aniga inaan feeraha ka furiyo kilkilaa iyo ka qodqotay oo adiga aad qosashood baf waxa ku sheegaa oo ilin ay ka ibaadaan ku dhaay baaf ilin tirqsi haysa dad si wiisida ku dhaay laba suul walaama dhoo suulka labaadaan soo jaraa uga wartay rosan siiha wallahi billahi ku dhaay minoo roosa qaada waayo ya laba suul walaama dhoo okay intaasaan jeclaystay inaan madax idinkaga galo waa walaalkiina laba suul oo ayaata garanku soo labistay kadib markii aad shaatiga aad ka xoorteen waa idinka baxa ku sheega subscribe u saari la idin laga waay sheegareen la idin laga haynin comment maxaan ku sheega nagu dhiirigeliyeen balay mahaasay iga qabatee niman yo maad dhiirigelisaan walaalkiina ahee xaad cunsuri iigu tihiin walaalaheeyo cunsurnimada waa laga roon yahay waxaan gaala iska leeyo adiga ma liide lacagna jeebkaaga ka bixi meesay minaad iftiirsan walaalka oo daawataan bartaana aniguna ka soo salaama caafimaad ku rajay lahaye laakiin adigu daawasha kuguma heystay waa adigana subscribe-ki luuq iga galshay dhibaato maasad iga keentay maad iga dhaaftaan marka intaasaan idinku soo gabagabeynaa tani intaan dib habad ugu kulmi doono anigoo sidan madax idinkaga gali doono waxaan idinkaga tagayaa nooli kulanti dambe iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabay waa idinku ogaay haddaa videoga aragto ee subscribe saari weysid nabe dagaalaad iga rabtaase anaa ku ah minaan kashabiito fiiso wallahi xataa inay Amerikaan ee wallahi dagaal kashabiito fiise oo kadalab ahaan idinku soo qaadaa uga bartay wallahi billahi channelka waa channelkiina ariya subscribe ii saara hay ugu dhibinahe videogan like saar oo sheegaray asxaabtaada waa idaaliseen saan idin dhahayaad idin kugu noogee حد مركز سيد يقول تيني منك مركز ويلكيني يا أنت أسكت بهدي ذات دقيقة كأنت أنا ما أنا ضل مكهرباء أوكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.